waxaan rabaa mar walba kaamil dandaara inaan qof dhiirigeliyo qof alla qof ku yahay qof walba wanaag rabo oo Soomaali ina dhiirigeliyo marka عموم معلمين توا وضع السعودان بلد كلا سوق لك عنايا إباحة وين واكنا oo bila arab سعيد ما برادر يا أنا لا سعود الله كانوا الذين قرنوا يا ماما مية عطورها غير مركوت كان لا سعود akram أنا صاحب أكرم AK in the building معلق جيمكو واللي باحيقة الله يرب من نقطة دفور هذا محير تادنا ألف مجلسة دور كسر مرة تادر كهوس مجلسة دفر كنا مبدسة دراتنا مجيف تادر كنا مطور تادي كذا مقالة دار على دمر مئك تادر سيد على مدير تادي هم إذا مرة عدادنا عيد ميت خمسة دور حب مشير ساد حنترن ما أرك تادي خبر في مجيف تاد سكريت كنا مدوك تادي افتقود مهو بسا أكتر بين ما أدا حنت هذا المدوك تادي تديك شديد يدور صدر مقايب تاد مية من خيبان بواي إجوت marka hore waxaa muhiim ah inaad isku kalsoon tahay naftaada markaa ku kalsoon tahay wax walba oo tiigsanaysid waa gaari kartaa waxaa kale oo muhiim ah si ixtiraam leh oo respect leh inaad ula dhaqantid dadka kale oo asxaabtaada ah ama qofka kale oo ganacsi ama wax walba kala shaqeynaya daacadnimada ku dheehan tahay inaad ula shaqeyso waliga allaha intaad nooshahay wad liibaanaysaa markaas midda kale oo aad iyo aad ka muhiimka u ah waxay tahay inaan ogaano mar walba diinteena mar walba aan ilaashano waayo diinteena waxay naga reebaysaa wax walba oo markaas xumo aad ku dhaqaaqileen ilaahayna bedelkeed wuxuu kugu bedelayaa wax walba oo wanaag ah marka wadada aad tiigsanaysid waxaa la rabaa inaad mar walba niyadda aad ku haysid meel korona aadan ka soo bilaabin waayo jarjaro camal way adduunkan hoos ka bilaaw ilaa kor adiga gaarayo motivation ama dhiirigelin waxa kugu filan walaalahaada dadka wanaagsan qof walba walaalkaada wanaaga kula jecelna ka dhaweyso dadkaada waxaan kuuna rajeynayaa walaalkayga Soomaaliga ah inaad guushaada aad gaartid waliba adoo faraxsan oo si daacad ah iyo wadada ugu fudud aad ugu gaartid insha Allah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh anaga Soomaalideenan yani maadaama aniga naftirkeyga aan Soomaali ahay laga yaabo hadalkayga dadka qaar inay yani qalad u fahmaan ama si ay u qaataan dad waxaan nahay negative badan negative kaas waxa fiican siisaba in la duuduubo xagga in la dhigo sababtoo ah qofka walaalkaagi adiga ayaa horumar gaarsiin kara adiga ayaa liidi kara marka haddaad aragto for example walaalkaagi oo wax qalad sameynaya xataa qaladkiisa ha ku qaban isla markii waxa fiican inaad u dejiso talo wanaagsan siisid si qosol farxad inaad yani aad walaalkaagi fikrad wanaagsan ula qaybsatid si asaga yani dhiirigelin uu helo sibood uu dareemo yani in garabkiisa la taagan yahay marka walaalkaaga ku caawi fikradaada uu ku baahan yahay adigana waad u baahan tahay iyo hal arin kalena waa ku sii darsanayaa videogan ama video walba uu soo duubayo walaalkeeni Saciid waa muhiim in commentiyada aad fikrado iyo ra'yo aad ku soo darsataan talooyin aad soo jeedisaan oo talooyinkiina wax aan kala baxno si yani waxyaabaha aad ka hadlaysaan anagana yani aan fikrad iyo wax ugu soo saarno insha Allah dalkii ardaystayago mar joogay wuxuu helayaabo waa ka ku istaagay awood cagihiisa waa ka ku istaagay awood cagihiisa dalkii ardaystayago mar joogay wuxuu helayaabo waa ka ku istaagay awood cagihiisa waa ka ku istaagay awood cagihiisa